Assalamu alaikum, TikTok family. How are you guys? Thank you so much. I love you guys so much for helping me and supporting me throughout these years. But I wanted to let you guys know I'm going to YouTube, and I literally opened a YouTube account this year, and I want you guys to follow me and subscribe me there. Okay, it's in my bio underneath my name, so you'll see that. Also, I wanted to let you guys know TikTok, since TikTok is shaking and is basically 2025 January, I think TikTok is not fighting no more. So I think they're gonna let the government do what the hell they want to do, which, believe me, I'm against that, but hey, whatever. Okay, so as you guys know, I was a TikTok shop creator. Okay, so that means I used to earn some money from TikTok, right? So now TikTok allows us to go to eliminate. Okay, so you guys go ahead and go to eliminate account, make that app eliminate account app, and link it with your TikTok. If you have two TikToks, you have to make sure you make two accounts on eliminate and you link it accordingly, whichever account, right? But I only have one TikTok account, so my one TikTok account, so that's what is going on, guys. But my YouTube account is Hoyo Circle. Please go ahead and subscribe. It's underneath my TikTok account in my bio. You will find it. And I also want you guys to go ahead and make an account for you on eliminate. Dadkayga Soomaalida waliba. Okay, let me Soomaalida ku sheego. Soomaalida ay igu xiran, please, TikTok way ka baxaysaa America, because America 2025 ka ayaa, I believe, ugu dambayso TikTok accounts, because they abandoned it, and that bill passed. Okay, so maadaama oo biilkaas uu baas gareeyay, means dadkayga Maraykanka TikTok ma haysan dooni access, but waxaa haysanaa appka oo loogu waco Lemonade. Already Lemonade aniga I transfer, okay, to Lemonade. So please make sure you follow me over there too. But as you, okay, America hadaa ku nooshahay, aad laba account haysatid oo TikTok ayagaa kuu sameynaya transferka, okay? But just make sure inaad labada account isku link garaysid. Let's say account kula haysataa, account oo Lemonade haysataa, labada isku attach link garay. Hadaa haysatid laba TikTok, you need laba account of Lemonade, okay? Si oo ay kugu attack garayaan. Make sure you attach them, and it maalinta oo bilawga uu yahayna waa maalinta oo 20th November 2024, okay? Aniga already waan sameeyay, aniga account qura haystaa, accountigan qura aan kala hadlayaan haystaa, accountigan qura haystana already linked waan ugu sameeyay. Inta kale TikTok ay idin sameynaysaa, hadduu age kaaga yahay, hadduu yahay information kaaga, hadduu yahay address kaaga, hadduu yahay followers kaaga, wax kasta they're gonna turn it to Lemonade. But followerska, I believe, inta ay ku xayn karaan, ku wareejin karaan inuu yahay haddii aad Lemonade haysatid account, okay? Haddaad Lemonade account aad haysanin, way adag tahay sidii kuugu wareejin karaan. Maogtahay, you know what? I hope inay fahanteen saan idinku sheegayo wax. If haddaa haysatid Lemonade account, automatically way ku wareejinayaan dadkaaga oo subscribe ku ah ama followerska ku ah TikTok oo accountiga ku xiran, automatically Lemonade ay ka dhigayaan, because ogow TikTok 2025 way dhamaatay. You see what I mean? But haddii aad haysatay violations, haddaa haysatay TikTok violations iyo waxaas, violationkaagii inay kaa harayaan ha malaynin. Lemonade markaa u baxdid, violationkaaga ay ku raacayaan. Aniga waa ogtihiin TikTok shopping affiliate aan ahaa, TikTok shop affiliate. Maadaama as TikTok shop affiliate aan ahaa, I think I have one violation. That one violation will go with me.
to eliminate. Okay, so please ka fakera taas. But waxaan idin sheegayaa TikTokan 2025 America is going to become illegal. So in order for them to make it illegal, the eliminate accountiga or appkaas ayaa TikTok ay u wareegaysaa. Means magacaagii, agekaaga, maxay toole affiliateska aa haysatay, subscriberska aa haysatay, dadka followerska kuwa, everything is gonna change it to eliminate. Okay, they're gonna do that part, but you have to make sure you link. Haddaa haysatid one account, inaad ku link garaysid TikTokaaga. Haddaad haysatay 2 accounts, inaad 2 accounts samaysatid waa eliminate-ga, oo labadaada account ay link marka each one uu ku yahay kii oo saxdaha aad ku haysid. Okay, so haddaad 2 account TikTok ka haysatay, 2 account u baahan tahay eliminate. Each account inaad kii saxdaha ku link garaysid. Okay, but haddaa qalad ka gashay TikTok ama TikTok shop like me, waxaad samaynaysaa ma kaa harayso, way ku daba taagnaanaysaa one. Okay, so please make sure inaad gelin mid saddexaad, mid labaad, mid afraad. Okay, love you guys, bye. Mwah.